kamidka ahaa companiga Tiens ayagoo noo sheegay inay faa'iidooyin badan kala kulmeen dhanka caafimaadka ha u badnaatee bal adiga faa'iidooyinkaad kala kulantay intaad ku soo biirtay wax nooga taabo maasha Allah run ahaantii horta aniga Tiens ka hor waxaan ahaa arday 2017kii dadka high school dhameeyay ayaan ku jiray 2018kii aanoonan wili wax galaasa bilaabin laakiin qorshaygu ah inaan college bilaabo ayaa maalin gabar Faadumo la dhaho Faadumo Farxaan oo companigan uga soo shaqeynaysay Soomaaliya Muqdisho Nairobi timid ayaa waxay ii sheegtay opportunity ama fursad shaqo inay ii hayso shaqadii waan weydiiyay xafiisaan leenahay xafiiska igu imo way dhahday xafiiskii aan ugu tagay macluumaadkii iyo shaqadii ay ila wadaagtay isla meeshii ayaana go'aan ku qaatay oo kambanigii ayaan waxaan noqday distributor ama qof kamida hadaba kambanigan aniga hadda maanta waxaan la shaqeynayaa ku dhawaad sanad iyo 3 bilood ayaan ka shaqeynayaa kambanigan horta hadii bulshadaan u faahfaahay shaqada la qabanayo kambanigan wuxuu ku shaqeeyaa wax loo yaqaan direct selling ama multi level marketing iibka tooska ah taasoo macnaheedu ay tahay qofkii kambaniga markuu ku soo biiro wax soo saarka kambaniga daawooyinka dabiiciga ah ayuu wuxuu ku leeyahay adiga horta nafsad ahaantaada iska bilow because of horeeya idin kugu sheego waxaan idin dhahay daawooyinkan prevention waa loo isticmaali karaa qofkuna wuu isku daweyn karaa kambanigu kuma dhahayo marka dad bukaana raadi ee wuxuu ku leeyahay adiga iska bilow isticmaal sababtoo maanta ma jiro qof 100% caafimaad qaba sababtu saas u dhahayo wax kale ma ahan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuuna dhahay naftaada waxa la jeceshahay walaalka la jeclow kambanigu marka wuxuu ku leeyahay intaadan qof kale u sheegin tijaabi horta daawadan waxtarkay leedahay adiga marka isticmaashid tusaalahan aniga daawada ciladii ama caajiska ah hadaan daal dareemay haday lafaha ay xanuunaan haday tinta oo kale daadanayso hadii calciumkaygu uu yar yahay productiga markaan isticmaalo hadaan ku caafimaado xataa kambaniga haduu soo faa'iido igu siin lahayn qof kasto u baahan waa u sheegaya because anaga bili aadan hadaan nahay wax walba wanaagsan dadkan la wadaagnaa kambaniga waxa jirta marka star level laga gala hadaan su'aashaada u soo noqdo darajooyinka faa'iidadan ka helay aniga maanta darajadaydu 8 starki ayaa wax yar iga dhimantaa bishaan gudaheeda rajaynaa inaan buuxiyo tusaalahan qofka darajada 8 star markuu buuxiyo kambaniga wuxuu siinaa wax loo yaqaan African share Africa dhan saleska laga sameeyay ayaa percentage ku yeelanaya kambanigan weekly commission laga qaataa bil ama waxa waaye mushaar lagu ma shaqeeyo qof kasta asaga ayaa naftiisa u shaqeysanaya qof boos loo yahay maahan bisha 4 isbuuc waaye isbuucaan aniga commission kambani ka qaadan ma jirto isku celcelis bishii 1000 ilaa $1500 ayaan commission ahaan ku xisaabtamaa sidoo kale aniga 6 month markaan shaqeynay waxaan ku guuleystay dalxiis dalka China ayaan achieve gareeyay dalxiiskaasoo aysan ii suurtoobin inaan baxo laakiin kaash ahaan la igu bedelo lacag ahaan aan u qaatay markii aan ka soo tagnay faa'iidooyinka adii wax caqabad ah ma kala kulantay intaad ku jirtay companiga wallahi horta adduunka hadaan ku dhaho caqabad lama kulmin beenan ku sheegaya adduunka wax la qabto oo aan caqabad lahayn ma jirto hadaan banaanka inta tago miis qudaarta aan ku gaday caqabadan kala kulmaya waa maxay maanta dhan qorraxda ugu dhacaysa dadkan waxay ga gadaneen shaqadan caqabada aad u badan aan aad u yareen caqabada waaweyn aan kala kulmay haday noqoto dhanka familka oo markii u horeysay dhayaan waxaan waa khiyaali iska dhaaf waxba laga helo iyo haday noqoto bulshadii Soomaaliyeed oo fursad aan siinayay sababtoo adduunka maanta joogna technology way dadku way fahmi karaan dadkii waxay la barteen wax loo yaqaan traditional marketing dukaan laga shaqeeyo maqaayad supermarket oo mushaar la qaato laakiin kambanigan waa marketing way tusaale ahaan kambanigan daawooyinkiisa factory-ga asaga ayaa gacantiisa ku sameeya kambanigan marka annaga waxaan sameeynaa word of mouth advertisement waxa yisiinayna the more sales adiga aad sameeysid teamkaaga the more you get more commission dadka qaar waxay ku leeyihiin waxaan khiyaali waaye waa la isku dhacaa wax ka jira ma lahan caqabadahaas oo kala kulmay laakiin adduunka qof walba qofka kale intuu ka caqabad iyo ka challenge badan yahay guushiis way ka badan tahay taasaan aaminsanahay haddana guul weyn ka gaaray dadkii ugu horeeyay oo waagan shaqada bilaabay idhahay khiyaali waaye iska dhaaf markay arkeen guulaha aan ka gaaray isbedelka aan ka sameeyay maanta dib ayay isku qoreen oo way shaqeynayaan oo qaar kamid ah xafladii maanta meeshan aan ku qabanaynay dadkii lagu abaalmarinay oo stage-ka soo istaagay ayay ahaayeen shaqadan sidoo kale aniga kaliya guul kama gaarin saa idin sheegay dadkan keenay waxay sii keeneen network-ayga waxay marayeen more than 500 person dad aniga aan keeno waxa jira iga faa'iido badan iga commission badan iga lacag badan dalxiis igula guuleystay insha Allah maantana waa ku maasantiin xafladan nagala soo qayb gasheen kambaniga waxa jira eventyo ama dhacdooyin uu qabto maanta xafladan aan qabanaynay waxa loo yaqaan NDO loo soo gaabiyay ama new distributor orientation taasoo dadka bilihii la soo dhaafay nagu soo biiray iyo dadka cusub ay keeneen kambaniga xogtiisa iyo macluumaadkiisa waxa way lagu la wadaagayay dadkii dadaalka badan sameeyayna juhdigii iyo shaqadii iyo dadaalkii ay qabteen lagu abaalmarinayay ugu horreyn waa idin kaga mahad celinaynaa STN booqashada maanta na soo booqateen kaliya waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed oo daawanaysa dhalinyarada dad badan waxay ku leeyihiin shaqo la'aan ay jirto tahriibaya iska wareegaya fursadu waa buuxda ka faa'iideysta noo imaada annaga ayaa waxa waa idin kaga horeynay go'aan
go'aankeeda qaadanay qaabka horumar iyo guul ku gaari lahaydeenna annaga ayaa idiin sheegayna intaa unbaa ku dirsanaya waa mahadsantahay walaal aad u mahadsantahay abukar mar labaad waxaan kuu soo dhaweynaa telefishinka STN gaar ahaan barnaamijka arrimaha bulshada daawadayaal guud ahaan intaasi waxaan kusoo koobaynaa barnaamijkii arrimaha bulshada oo si toos ah idinkaga imaanayay telefishinka STN barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdiqaadir shariif tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo